jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo deegaanada hoos yimaada ayaa soo gaaray magaalada Wajaale ee ku taala xuduudda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Ethiopia dhinaceega Somaliland dadkani oo isugu jiray dad waayeela kadib markii ay rabshado ka dhaceen magaalada jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia kaasi oo u dhaxeeya dawladda federaalka Ethiopia iyo kilka shanaad isla markaasina ay ka soo carareen dagaalada halkaasi ka socda dadkani oo isugu jiray dad waayeela iyo dumar sita caruur aad u yar yar waxa weeye waxa horta marka hore baa qadaraya xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland oo amniga xuduudaha dhammaan bas dalka kooban waxa weeyaan dadkan waa dad Ethiopiana waa dad soo qaxay waxay ka yimaadeen jigjiga iyo Wajaale daanteeda xagga Ethiopia waa dadkii ganacsadii ee qaybina waxa weeyaan halka ka ganacsanaysa ganacsigeedu aad u fududaaway waxaan u diray hadda xukuumadda Somaliland dadkan oo dad dan yar oo macluulaya ku jiraan inaan ilaa xilligii shalay ay arrintu aan wax la soo gaadhin waxa kale wax nagala qabtay amniga taliyaha saldhigga booliska tag Wajaale aan ugu mahad celinayno waxa weeyaan waxaan hadda u direynaa baaq Jamhuuriyadda Somaliland in hotel ganacsi oo central ma hayn karto Somaliland ma madan hayn karto waxaan leenahay Somaliland mar labaad iyo mar saddexaad ummadan ha qaabishaan leenahay bismillaahir rahmaanir rahiim nuti jolle noromoda unoti Wajaale qeysati rabshaan hedduu rageysay jirti tanaafu lubbuu teenyarraan tana qeyroo abdii baruu tambiyati qeysati khaleeysaas taatee arras balmaa jirtu yeroon tun rageysennee manaan baane arraan tan akka malee manaa baane asitti haala malee rageeyee jirra tanaafu ol baasaa lammaa magarsaatiif Abiyyu Ahmadiis walumaanuu waliigala Oromiyaa guututti namoota asitti akkana rakkachaa jiru kana ayaan waxayna kari waayeen awoodda maartay dariiqa ay ku mari lahaayeen marka hooyooyinkii ciyaalkii waxa dhan way isku wada jiraan kuwa la soo laayay jijiga ka soo carareen way jiraan tood negti uno tumani kuno akay kabeenya kenya juma saamani akati galus lamne kuno Somaliland ni saaki tifindu ka central baka jani walin ko bani kuno akasiti sa lubu tenyo no yagu jirani